بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة أني أما مجالسة أني أنا مقعد الرهي صحيح سلسلة صحيح قصص النبوية. سلسلة دي كصاب سنة قصص كالنبي عليه الصلاة والسلام كسونا ذي يا وعظ ذي كالدوانا، والسلسلة دي أما مجلسكي أما جلسدي صدحي طبنادوي، وسلسلة دي صحيح قصص النبوي كصاب سنة. ما أنت قصة أنه قاضني إنه قصة هذه رنتي وعجيب بدن إن بدن وإذا كذا كمان لقى يا أبو إن أما آخردين أما دقيقتين واحد بدن أنه كهذا الله يبغى أكثر من موضع أما من موقف أنه كرشة كأنه. وحديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كسرنا هذا متفق عليه أبو هريرة، والنبي كورنا مسلم البخاري نيسو صارين. قصة راس وحي حمبار سنتهاي معاني آد وفر بدن معناها، لكن هو حق بدن ورع نمط يا حلال قوض الشضر يا وحيابها شبهات يا كتير إنه قفك كفوا هذا، وهذا يشر ويسكت ضيو إنه ما أرتاح حلاش وكوك هذا حرام تنو كفوا هذا. وحي قصة حمبار سنتهاي قناعة إنه قف وحي الله سبحانه وتعالى سيوكو قنعه وسؤوهن قلتاقين شيء كلا وسؤوهن قلتاقين انتو اسئلالين كرانو اسئلالين. قصة وحي النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة ورنها إياه، وقصة معروفة. وحي النبي وقال كي صحابة ديسا مال كما وحي كور رمي ان مجالسته ونبي وصحابة ديسا ولقب قاد ومارتك لفري سنشري أيه وحو كاغا ورمي لبا نين oo reer banu Israa'iil ama laba nin oo umadii hore ayuu ka waramay. nin baa nin wuxuu ka iibsaday dhul buu ka iibsaday ama aqaar iyo guri buu ka iibsaday. markuu iibsaday dhulkii oo dhulkii la soo wareegay, ama hadaad guri tiraahdina uu la soo wareegay adoo ardadii uu la soo wareegay lacagtiina uu tiriyay oo ninkii uu dhulka iska lahaa lacagtiisa siiyo lagu kala baxay ayaa wuxuu damcay dhulkii inuu ama dhiso ama uu wax ku qabsado. dhulkii buu qoday, shaqadii dhulkii laga qabanayay la qodayay ayaa wuxuu ku dhaxarkay majaradan bahaldan oo weyn oo weel dhan oo dahab ka buuxa, jalxadan oo dahab ka buuxo ayuu ugu tagay meesha. dahabkii buu soo saaray, weelkii oo buuxo dahaba ayuu ka soo saaray. muusa dhihin waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kanzi dhulka ku geliyay oo heshay weeyaan, ma qarsanin. farax intuu farxay oo aad iyo aad u reenreeyay, marka boqolkiiba boqol uu noqdo ama boqolkiiba 200 la muusa keli noqonin ee wuxuu yidhi waswaasi shaki baa galay iyo waracnimadka heerku ka gaadhay xoolahan ama dahabkan dhulka aad ka soo saartay ninkii kalaamuu lahaa oo aad lahayn. ninkii dhulka ayuu raadiyey, wuxuu yidhi niyahow dhulka maan kaa gatay. dhulkii markaan qoday oon ama dhismo ama hagaajisaan oo u kacayna bahashan oo buuxda, weelkan oo buuxoo dahab ayaan arkay. anu dhulkaan kaa gatay ee waxa ku jira kaama gadanin hoobuu ku yidhi qaada dahabka. kii kale wuxuu yidhi niyahow anuu dhulka iyo waxa ku jiraba waan kaa gaday, saa darteed anuu ma qaadanayo. labadoodii baa isku celceliyaan arrinta, midba midka kale uu yidhi anuu ma qaadanayo, aad u qaado. arrintii markay isku celceliyaan ay ku heshiiyeen inay qaadigii magaalada joogay in la aado oo arrintii loo rafciyo. qaadigii bay u tageen, qaadigii bay u warrameen. nin kasta wuxuu isku dayay inuu iska bari yeelo oo hantidaa asaga ayna soo gelin. kii dhulka iibsaday wuxuu yidhi anu ninka dhulka aan ka gatay waxa ku jira kama gadanin. kii kalena wuxuu yidhi anu dhulka iyo waxa ku jiro dhammaan ka gatay ninka. qaadigii wuxuu sameeyey markaa labadoodii buu su'aal weydiiyey, wuxuu ku yidhi war wax carruura ma leedihin? mid baa wuxuu yidhi anu wiil baan leehay, ka kalena wuxuu yidhi gabadh baan leehay. qaadigu wuxuu yidhi intaad isu guurisaan labadaas ku sadaqaysoo siiyo xoolaha siiya. sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka saxaabatu rasuulillah uga warramay. ikhwati filaahi, xadiidkan haddaan waqafaad yar dul istaagno dhowr nuqdo ama dhowr qaybood aan ka fiirino. awalan
labadan nin waracnimadkay muujiyeen haddaanu barbar dhigna maanta nolosha lagu nooliyay iyo xaaladdu say tahay adoo dhul gatay ama guri gatay oo dhulkii intaad qoday baaldi dhan ama weel dhan oo dahab oo buuxa aad meeshii ka heshay inta in laag baad u malayn inaad qofkii dhulkaad ka gaday aad raadin lahayd qof kastoo bal dib u fiiri inta in laag baad u malayn dahabkaas inaad raadin lahayd qofkii iska lahaa macnaa qofka dhulka lahaa aad ka iibisay haddiise maartay aad raadisi kii dhulka lahaa haddii loo geeyo liyaa dahabka ma dhulkii laga helaya niyow lagaama gadan dahabka dhulka maan kaa gadanay hoo inta in laag buu dhehi lahaa marka aanu dahabka malihi aad iyo aad bay maanta arrintaa u yar tahay qaabkaa qof u xalaal mirta taa waa qodob weeyaan qodobka kale dhinaca kale haddaan ka istaagno waxaad u fiirsataan labada nin kasta wuxuu ku dadaalayaa xoolaha inayna soo agmarin oo iska difaaco kii dhulka gatay wuxuu iska difaacayaa oo ku dadaalayaa dahabka inuusan xaggiisa soo marin kii dhulka lahaana wuxuu ku dadaalayaa ee dhulka iibsaday kii dhulka iibsadayna dahabka inuusan asaga xaggiisa soo marin buu ku dadaalay mushtarigii dhulka iibsaday inuu dahabka soo raacin buu ku dadaalayaa baayici dhulka iska iibiyayna dahabka inuusan xaggiisa soo marin buu ku dadaalayaa ninba ninka kale inuu xaggiisa u riixo isku dayay oo asagu iska difaaco waa arrin cajiib weeye xaqiiqatan ma labada nin baan la yaabnaa ficilkay sameeyeen mase qaadigaan la yaabnaa qaadigaasna cajiiba markii loo geeyey dahabkii muusa dhihin war labadiinnaba midna ma lihidiina anaa iskale oo meesha ku iloobay ama xaqu ma lihidiina dowladdaa iskale keena muusa dhihin waa qaadigaasna cajiib ayuu ahaa dowladda iyo bankiga islaamka la dhigaya keena muusa dhihin haddiina labadiinnuba ina rabin dad rabaan naqaanaa iska keena muusa dhihin annagaa u baahanay keena muusa dhihin asna wuxuu isku dayey dhinac kale zaawiye kaluu ka istaagay labada nin qiimaha ay leeyihiin iyo wanaaggoodii iyo diinta ka muuqata iyo maaragtay salaaxa ka muuqda iyo soo ninba ninka kale xalaal miiradka ugu dadaalahayo maaragtay ayuu qaadigu la yaabay soo jiidatay kadibna labadii qof ee aad u qiimo badnaa inay had iyo jeer siladoodu iyo xidhiirhkoodu uu joogto ahaaduu ku dadaalay saas darteedba wuxuu weydiiyey carruur ma leedihiin midba midka kale wuxuu ku yidhi anna wiil baan leeyahay ka kalena anna gabadh baan leeyahay isu guuriyo ku sadaqaystuun halkaa waxaa ka soo baxay labadii nin ee fiicnaa inuu qaraabo ka dhiga qaadigii oo xidhiidh ka dhexaysiiye joogtaa iyo suxbo ay ka dhexaynayso ikhwatii fillaahi runtii waa arrin aad iyo aad u qiimo badan culimmadu waxay dhahaan waxaa laga qaadanayaa xadiidka tawarruca ninka baayic ee alaabta iibsanaysu u tawarrucahayey oo u xalaal miiranhayey iyo ka mushtariga suu asna u xalaal miiranhaya u dadaalhayey iyo qaadiga xukumaya asna suu u dadaalhayay idan mujtamacu waxaa la yidhahdaa haddii ganacsatada kii dhaqaalaha lahaa iyo kii alaabta lahaa iyo kii mucaamaloonhayey iyo kii kale xamaalanhayey iyo kii xukunku ahayay intuba hadduu mid kasta ku dadaalo inuusan xaq xaggiisa soo marin oo cadaalad uu ku dhaqmo uu ku dadaalo mujtamaca wuu ficnaanaya bal u fiirsadaa saddexda qof ninkii mushtariga ah ee lacagta watay ee dhulka iibsaday wuxuu ku dadaalahayey inuu wuxuusan lahayn uusan hubin inuusan xaggiisa soo marin kii baayica ee alaabta lahaa ee dhulka lahaa wuxuu ku dadaalahayaa inaa asna wuxuusan hubin inuu xaggiisa soo marin oo shubahaadkii waxa uu iska ilaaliyo xaakimkii u geeyeen wuxuu ku dadaalahayaa rishwo iyo shay xaaraama iyo shay aan la hubin inuu ama bankiga islaamka uusan soo dhigin ama maaragtay xaggiisa soo marin idan saddexdaa cunsur ee mujtamacu uu ka kooban yahay saddexduba waxay ku dadaalahayaan ninkii mushtariga ee dhaqaalaha watay kii alaabta watay qaadigii wax xukumaya xukunka u joogay mid kastaba inuu waracnimo iyo xalaal quudasho iyo qanaaco uu maaragtay ayuu ku dadaalaya idan mujtamaca noocaasa wuxuu noqonayaa mujtamac aad u qiimo badan innaga qaadiga loo tago maaragtay ilaa man raxima rabbuna mayaatu islaam uu waxataato ku xukumayo inuu rishwo qaatay u badan tahay ku qaanuun joogo oo maaragtay qaanuun ku xukumi iska badaa asaga warkii maaragtay maxkamadba haddii la tago laaluush iyo ninkii un kolba shilinka u dambeeya iskale unbay xaggiisa maraysaa kuwan wax kala gadanay ninba ninka kale yuu isku dayay inuu xuquuq ka soo qaato oo shaygan hadduu alaabtan iibahayd inuu qiimo jaban kaga qaato kan kalena wuxuu rabaa inuu wixii ceeba alaabtu leh u qariyo
idan waa dad giddigood isdaba maartay ninba ninka kale gaadahaya wey mujtamaca noocaasa goormay dhismahayaan meel ma gaadhahayaan waxaa kaloo culimmadu leeyahay xadiidka laga qaadanayaa waraca xalaal miirashada iyo wixii shubahaadku tusinhayo laga fogaado qiimaha ay leedahay fadlul waraci wa tarku maa fiihi shubha maartay ashubah min almaal waxyaabaha maalka xoolaha oo shubahaadka maartay ay ku jirto aan caddayn xalaalnimadkoodu iyo wixii la midka inuu qofku ka fogaado xalaal quuto shayga xalaasha waa shay aad u qiimo badan ducadeenna iyo cibaadadeenna aqbalkeedu waxaa asal u ah inaad xalaal quudat waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa bay xambaarsan yahay sadaqada fadliga ay leedahay infaaq fii sabiilillaah qaadigu wuxuu ku tawjiihiyey labada carruur ay kala dhaleen intay u guuriyaan inay waxa ku nafaqeeyaan oo ay ku sadaqaystaan waxaa su'aal mudan oon anu isweydiiyey kutubtana ay qorahayaan ayaga qudhigooda la keenay su'aashooda hataa abu hurayra xadiidka warinaya uu yidhi nabiga agtiisaana arrintaas yaanu annagoo saxaabaha kaga doodnay buuri walow wax jawaaba aan laga bixinin su'aashaa waxay tahay saamiciinta iyo intay dhegaysanaysa ama xadiidkan uu gaadhay ama qisadan uu gaadhay ayaa laga rabaa cidda baadhi karta inay baadho arrintaas labada ninka dhulka iibsaday iyo ninka lacagta lahaa ninka dhulka iibsaday ee lacagta lahaa iyo ninka dhulka iska lahaa ee baaci ahaa ayuhumaa akharu amaanatan labadaa ninkee ammaano badan ninkee xalaal qudasho badan ma ninkii dhulka lahaayaa yidhi anigu dhulka iyo waxa ku jiroo dhammaan kaa iibsaday niyo dahabka ayla soo gelin baa yaa ammaano badan oo xalaal qudasho badan mase ninkii dhulka gatay ee yidhi niyo anu dhulka bas aan kaa gatay waxa ku jira kaama gadanin ee niyahow iga hor dahabkaada qaado aduu dhulka kugu jiree kaasaa ammaano badan oo waracnimo badan labada nin waa kee waracnimo badan ammaanadoodu ninkee ammaano badan abu hurayre wuxuu leeyahay nabiga annagoo la joognaa arrinkaa isweydiinoon ku doodnay oo qaar ay dhaheen ninka dhulka iska lahaa ee dhulka iibiyey ee dahabkii yidhi dhulka iyo waxa ku jiroo dhammaan kaa iibiyey baa ammaano badan oo waracnimo badan ragna waxay dhaheen ninka dhulka gatay ee lacagta lahaa ee yidhi anu dhulka basaan kaa gatay ee waxa ku jira kaama gadanin kaasaa ammaano badan oo waracnimo badan bay dhaheen almuhim waa su'aal qaa'ima weeyaan oo wakhtiga hataa xadiidka nabigu uu sheegay ay saxaabadu ka doodeen waxaa lidinka rabaa qof kastow su'aashaas inaad xallisay isku day labada nin maxay ahaayeen nin dhul buu lahaa ninna lacag buu lahaa dhulkii buu iibiyey ninkanna dhulkii buu ka gatay oo lacagtii buu ninkaa qaatay ninkii dhulka lahaa lacagtii buu qaatay oo la tegey kii dhulka iibsadeen dhulkii buu qaatay dahabkii dhulka laga helay kii dhulka gatay ee lacagta iska lahaa dahabkii inuu qaatay waa diidayoo ninkii dhulka ka gatay u celiyey oo yidhi dhulka basaan kaa gatay waxa ku jira kaama gadanin ma ninkaasaa ammaano badan oo waracnimo badan mase ninkii dhulka iska lahaa ee dhulka iibiyey markii loo geeyey niyo anu dhulka iyo waxa ku jiroo dhan baan kaa gaday ee waxaa weeyaan ha ii soo dhowaynin baa ammaano badan waa su'aal qaa'ima oo saamiciinta iyo cid kasta oo qisadan iyo xadiidkan uu gaadhay laga rabo inay baadhaan meelahay ka baadhi karaanna fatxulbaarigaa ka mida sharxu saxiix muslim baa ka mida imaamu nawowi iyo kayrkii leeyihiin iyo fatxulbaariga xaafid ibnu xajar uu ku sharxayo iyo kayrkii meel kastood ka baadhi kartiba su'aasha waa su'aal qaa'ima baadha jawaabteediina insha allahu tacaala baa lidinka rabaa hadduu ilah yidhahdo ikhwatii fillaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaal xusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa had iyo jeer xalaal quuta wixii ilaahay u qadaray oo risqaana ku qanca waracnimadkana ku dadaala shubhaadka iyo waxaana caddayn xalaalnimadkoodana ka fogaada xalaal quudashadu waa shay aad u qiimo badan wey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid sanadkiisu dacfi uu ku jira laakiin min xaysu almacnaa saxiix sacd bin abi waqaas baa nabiga intuu u yimidba wuxuu ku yidhi rasuul allow waxaan rabaa inaan mustajaabu dacwo noqdo ducada aan ilaahay waxaan ilaahay weydiistay in laga aqbalaan rabaa nabiga hal shardi buu u sheegay wuxuu ku yidhi sacadow haddaad doonaysa inaad mustajaabu dacwo noqoto dacwadaada iyo ducadaada la aqbalo maartay dacaamkaada hagaag waxaad cunaysay xalaal ka dhig xadiidka dabaraani baa soo saaray dacfi baa sanadkiisa ku jira laakiin min xaysu almacnaa waa saxiix wey waa saxiix waayaana nusuus kale ayaa xoojinaysa iyo axaadiid kale xoojinaysa xagga macnihiisa iyo maartay
quraanka idan haddaad rabto in ducadaada la aqbalo waxaad cunaysi diib ka dhig buu xalaal ka dhig xadiidka kale sahih muslim waad garanaysaa Abu Hurayra oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka sheekay ninka safarta dheer marayay ee ilaahay bariyayo ducadiisa la aqbalaynin asbaabaha loo aqbali waayo wuxuu cunahay iyo wuxuu cabahay iyo wuxuu xidhay dhan waa xaraam nabigu idan marka xalaal quudashadu iyo waracnimadu iyo shubahaadka laga fogaado qiimaha ay leedahay buu xadiidkan ku tusinaya iyo dadkaas qisada uu nabigu ka sheekeeyay labada nin cajiibnimadkooda ninba ninka kale uu ku dadaalayay inuu xaqiisa wax ka soo raacin xoolahan uu sahubin inuu asagu leeyahay u saqaadan xadiidka su'aalo badan ama fawaa'id fara badan iyo su'aalaad badan ba xadiidka uu leeyahay laakiin naga maanta intaas naga khusaysa su'aalaha waxa kamida limaada qaadigu labada nin mid kamid oo xukumi waayay limaada uu yiri marka caruurtiina soo guuriyo ku nafaqeeya limaada ma artay bangiga islaamka loo dhigi waayay xoolahan de labadooduba ay diideen limaada ayaga ma artay ma maqraati kana ama loo dhaari waayay ama sharcigan ma artay waxyaabo lamid ah isweydiiyaa waxa kamid waxa la isweydiiyo waa sharciga hore ee dadka ay ku dhaqmeen hal waa sharcun lana inaga sharci miyo noo noqon waa mas'ala marka waxa way culimadu aad uga hadlaan laakiin hadda inaga baabka kuma jira qisada ma artay waxay xumbaarsan tahay waracnimad iyo raggaasay u dadaalahayeen nin kasta uu ku dadaalahay wuxuu sahubin inuu gacantiisa soo galin xoolo uu sahubin inuu milkiyada u noqonin shubahaadka iyo waxaana cadayn oo dhan uu ka fogaado ayay ku tusinaysaa waxa kale oo ku tusinaya qaadiga waracnimadkiisa oo xoolahaas ay qudhigiisa uu saboobin uu sadin hadii idinku rabin annaga rabna meel baan geynaya bangi islaam baan dhigi hebel midna uu sadin asna uu ku dadaalay labada nin soo qaraabo uga dhaxaysin laha iyo xidhiidh waligood ma artay daa'ima oo ma artay ayaga isku soo dhaweeya uu ku dadaalay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa ikhwati filaahi inuu allah xaqana tusan ugu irsaaq xaq raacitaankiisa waraca iyo xalaal meerashada iyo xaraamto la iska ilaaliyo iyo shubahaadka laga fogaadana inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga dhigo kuwa ku dadaala innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh